Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan kusoo gudbin doonaa chapter ku saabsan queuega isagoo lagu implement gareyn doono array ama circular array. Waxaan hore usoo aragnay queuegan inaan ku implement gareynay linked list oo waxaan soo sameynay class lagu magacaabo linked queue. Waan soo aragnay operationski uu iska lahaa inaan wax ku dari karno, wax ka remove gareyn karno, aan size-kiisa ogaan karno iyo waxyaabahaas. qaabka labaad loo implement gareyn karo queuega waa inaan isticmaalno circular array. Waxaan isku dayi doonaa inaan ka fargareyno inta ugu muhiimsan hadduu ilaahay idmo. Implementationka waa qaybtii labaad ayadoo lagu implement gareyn doono array. Array sida aad la soconnaba waad taqaanaa oo badankeena uu ka dheragsan yahay. Array size-kiisu waa maxaa la dhahaa fixed. taas waxaan ku xalin doonaa markuu buuxsamo inaan sameyno expand capacity inaan sii ballaarino oo arki doonaa. Problemka labaad wuxuu noqon doonaa queuega haddii elementiska ku jiro tusaale ahaan 4 god u ahay ama 100 god u ahay. Waxaan isticmaalnay 100 god uu buuxsamay. Waxaan ka tirtirnay godadka ugu horeeya wixii ku jira frontiga ilaa iyo dhowr god tusaale. maadaama godka ugu dambeeyay aan isticmaalnay horena waxay ka bannaan yihiin wuxuu u muuqdaa arraygaas inuu buuxo sida reality-gana ma buuxo. Waxaan sameynaynaa marka laba solution mid ayaan isticmaali doonaa. Solution koowaad waxay tahay inaan sameyno shifting elementiskii xagga dambe taagnaa inaan soo sokino oo hore keenno. Wuxuu shaqeyn doonaa haddii size-ka uu aad u yar yahay. Marka dambeysa hadduu size-ka sii bato waxaa dhici doona problem ama performance-ga aad culays u noqon doono. The second solution aan isticmaali doono wuxuu noqon doonaa inaan isticmaalno wax loo yaqaano circular array oo micnaheedu tahay haddii godka ugu dambeeyo aan isticmaalo horay uu wax ka bannaan yahay. Waxaan sameyn doonaa godka inaan hore haddana kasoo isticmaalo oo aad u maleysid loopkan in asaga qaab circular u sameysan yahay oo asaga isku wareegsanayo maanta oo dhan. Problemka marka waxaan ku xalin doonaa inaan isticmaalno circular array. Solution-ka marka aan circular array qaadano, circular array wax kale maahan waa array-ga aad taqaanay laakiin wuxuu u dhaqmi doonaa qaab ahaan markaa fiirisid wax asaga isku soo wareegsanayo kale inuu asaga uu isku soo laabanayo. Godka ugu dambeeya haddii la gaaro waxaa la fiirin doonaa hore wax ma ka bannaan yihiin. Haddii hore wax ka bannaan yihiin ku daristaadana hore ayaa laga soo bilaabi doonaa. Saas isaga daba socon doonaan frontiga iyo rearka. Micnaheedu marka waxay tahay circular array-ga indexka ugu dambeeyo markii la gaaro hadduu hore wax ka bannaan yahay indexka waxaa laga soo bilaabi doonaa 0. Galaaska markaan sameysanayno loo yaqaano circular array waxaan u baahannahay laba integer ama laba variable oo data type-kooda yahay integer. Waxaan sameysan doonaa frontiga wuxuu noo hayn doonaa indexka godka ugu horeeyo ama shayga ugu horeeyo la soo geliyo. Rearkana wuxuu noo hayn doonaa godka ugu dambeeyo wax la soo gelinayo. Waxaan kaloo u baahan doonaa counter oo noola socon doona number of elementiska meesha ku jiro. Galaaskeena aan sameysan doono marka sidaas uu noqon doonaa. Circular array qaabka uu shaqeynaya haddaan wax yar ka aragno tusaale ahaan array-gan hadda haddii aad fiirisid wuxuu ka bilowdaa 0 ilaa iyo 9 waa 10 god. Waxaan isticmaalnay 8 god oo ugu horeyso counter-keena waa 8. 8 god markaan isticmaalnay 2 god aa noo bannaan. Haddii aan isku dayno marka inta ugu horeyso 4 ugu horeyso aan tirtiray waxaa kusoo harday 4 god ayaa kusoo hartay. 2 god aa weli noo bannaan horena waxaa ka bannaan 4. Haddii markaan aan isku dayo marka inaan kusoo daro I, J, K, L oo ah 4 xaraf gadaal haddaa fiirisid waxaa noo bannaan 2 god. I iyo J ayaa inta soo geli doono. K iyo L maadaama inta waxba ka bannaaneen waxaa la fiirin doonaa hore wax ma ka bannaan yihiin. Hore haddii wax ka bannaan yihiin haddana hore ayaa looga soo dari doonaa oo sidaas u shaqeyn doonaa ilaa uu marka godadkiisa dhan labada isticmaalo full ma noqon doono. Hadda weli 2 god aa noo sii bannaan. Labadan markaan isticmaalno wuu buuxsami doonaa. Markaas waxaan ku qasbanaan doonaa in aan sameyno expanding oo capacity-gii aan sii ballaarino array-ga size-kiisa ama length-ga aan 2 ku dhufano ama 3 wixii aad markaas u baahatid. Circular array-ga marka qaabkaan u shaqeyn doonaa ilaa godadka dhan ay buuxsamaan expanding lama sameyn doono ama lama ballaarin doono. Maadaama aan dhahnay godkan ugu dambeeya iyadoo la joogo haddii horey wax ka bannaan yahay oo wax lagu soo dari rabo wuxuu geyn doonaa horey. Haddii frontiga inta uu imaado godka ugu dambeeya wax laga tirtiro frontiga haddana waxaa laga soo bilaabi doonaa 0. Micnaheedu waxay tahay
frontiga reerka markasta increment lagu sameyn doonaa ama hala lagu dari doonaa reerka frontiga sidoo kale asagana hala lagu dari doonaa modulus q lengthigan ama arrayga lengthigiisa waxaa loogu qaybin doonaa reminderka soo bixi doona waxay noqonee haddii godka ugu dambeeya la gaaro oo horey wax ka banaan yahay wuxuu kasoo bilaabi doonaa haddana 0 godka ugu dambeeyo 0 ayuu kasoo bilaabi doonaa sababta marka aan u isticmaalo qaybtan waa qaybta 0 kasoo bilaabi doonto marka inta taagannahay raabinka waxa sameynaya ama gadaal kasoo bilaabi doona indexka waa modulus q length tusaale ahaan hadda haddii aad fiirisid meeshaan godka ugu dambeeya 9 uu noqday 9 plus 1 markii aan dhahno wuxuu noqon doonaa 10 oo reerka markaa hal ku darno 10 uu noqday arraygan lengthigiisana waa 10 god haddii aan dhahno marka 10 modulus 10 waxaa kasoo bixi doono reminderku wuxuu noqon doonaa 0 saas darteed marka waxaa laga soo bilaabi doonaa 0 galaaskan u baahanna wuxuu noqon doonaa galaaskan waxaa lagu magacaabaa circular array q wuxuu iska leeyahay wuxuu noqon doonaa galaas generic ah oo any data type qaadan doono variableskan u baahan doono hal xabo oo constant ah oo lagu magacaabo default capacity tusaale qofka hadduu lengthiga uusan sheegan by default intaasuu guda u sameyn doonaa waxaan u baahannahay godka frontiga ama indexka wax noo hayn doono shayga ugu horeeyo reerka iyo counterka oo noola socon doono elementiska tirsigooda arraygan u baahanna waxaa lagu magacaabaa q waxaan isku dayaynaa inaan generic ka dhigno laba constructor aan sameysanay constructorka haddii qofka uu soo sheegto capacityga ama inta god u baahan yahay markasta frontiga iyo reerka iyo counterka waxaan kasoo bilaabeynaa 0 arraygeena waxaan leenahay markaan abuureyno new object array of objects aan abuureynaa sizekii ama capacityga ayaan siin doonaa kadib waxaan u bedeli doonaa ama conversion aan u sameyn doonaa generic sababtuna waxay tahay array oo generiga si direct uma abuuri kartid waa inaad marka hore array of objects abuurtid kadib type casting aad sameysid haddii qofka wax size uusan sheegan waxaan isticmaali doonaa default capacity oo micnaheedu tahay godadka defaultiga waxaa la qaadan doonaa 10 god kuwaana waxaa laga soo bilaabi doonaa 0 distan marka waxay u wacan doontaa constructorkan oo parameterizedka ah waxay usoo baasgareynaya default capacity waxaan sameysan doonaa marka inq markaan wax ku darayno waxaan iska fiirineynaa shayga aan ku darayno marka ugu horeyso sizeka oo number of elementska iyo godadka hadday isla ekaadaan godadka iyo waxa ku jira hadday isla ekaadaan wuu buuxaa meeshaan exception kusoo duurayo waxaan ku sameyn doonaa in expanding aan ku sameyno godka wax lagu soo darayo waxaan noo hayn doona indexkiisa reerka markastoo wax lagu soo daro reerka waan dhaqaajineynaa modulus q lengthigana waxay qabanaya haddii godka ugu dambeeya la gaaro horey uu wax ka banaan yahay in 0 index kasoo bilaabo counterkina halaan ku dareynaa dq waxa uu qaban doonaa inaan remove gareyno elementiga ku jira frontiga hadduusan empty ahayn marka frontiga wixii ku jira waxaan ku keedsan doonaa result godkaas frontiga nalaan ka dhigi doonaa frontigana waxaan ka dhaqaanjin doonaa kan uu yahay kan ku xiga u wareejin doonaa waan safka haddii qofka ugu horeeya uu ka baxo waxaan dhahnay qofka ku xigo ayaa noqon doono ama qofka labaad ayaa noqon doono qofka koowaad markasta counterka halaan ka jari doonaa hadhow waxaan soo return gareynaynaa shaygii la tirtiray oo arrayga laga tiray sizeka waa naqaanaa counterka ama number of elementsku noo soo celinaa empty waxay jeegareynaya inuu faaruq iyo in kale ugu dambeyn waan soo daabaceynaa hadduusan empty ahayn marka waxaan soo daabaceynaa laga soo bilaabo frontiga ilaa laga gaari doono counterka inta shayga meesha ku jirto hadday 5 ahaayeen 5 jeer uu wareegsan doonaa markasta god kala maraya indexkaana noo hayo kadib markuu soo daabaco waa dhaqaajinaynaa god ku xigo ilaa counterka uu ka gaari doono intii loogu talagalay maadaama aan soo aragnay arrayga capacitygiisa ama sizekiisu fixed uu yahay ama static waxaan sameynaynaa expansion ama expand capacity inaan ballaarino waxaan sameysan doonaa array cusub oo temporary ah oo lagu magacaabo larger sizekiisana waxaa leenahay ama lengthiga kii hore oo lagu dhuftay 2 tusaale ahaan hadduu 4 ahaa kii hore kan wuxuu noo noqon doonaa 8 hadduu 8 ahaa 16 hadduu 3 ahaa 6 qaab noocaas oo kale ah arraygan waxaan kasoo bilaabeynaa loopka scan ama counterkan waxaan isticmaalay scan 0 aan kasoo bilaabay ilaa intuu ka yaryahay counterka arraygeena temporaryga ah godkiisa 0 waxaan ku shubi doonaa frontiga waxa ku jiro waan wadi doonaa ilaa aan kusoo wada dhameyno markaa shaqada dhameyno frontiga waxaan kasoo bilaabi doonaa 0 reerkana waxaan ku shubaynaa counter oo ah godka ugu horeeya wax lagu soo shubi doono
queue-gani waxaan kusoo koobiyeynaynaa array-ga temporary-ga haddaan abuurnay si uu update garayso. waxaan rabnaa marka in aan sameyno hadduu ilaahay idmo code-kan waxaan isku dayeynaa code-kaas hadhow waxaa ka heli doontaa hadduu ilaahay idmo waxaa la dhahaa github-ka. meeshaan aan imaaneynaa waxaan abuuran doonaa circular array queue. waxaan sameysanaynaa circular array queue. waxaan u baahanaa marka in aan implement gareyno circular array queue. galaaski waan sameysanay, galaaskan waan sheegnay data waxaan dhahnay waxaan ka dhigi doonaa generic. galaaskan variables ku yeelan doono waxay noqon doonaan final, static, integer, default capacity. default capacity wuxuu noo qaadan doonaa haddii qofka wax god uu soo sheegan waayo by default waxaan u sameynaynaa 10 god, waxaan u sameynaynaa 3 god. sidoo kale waxaan sameysanaynaa private, integer, front, waxaan kaloo u baahannahay rear, waxaan kaloo u baahannahay count. ugu dambeyn waxaan u baahannahay array-gii aan wax ku keydsan lahayn waxaan ka dhigaynaa generic. waxaan u bixinaynaa queue. waxaan u imaanaynaa constructorskeena. constructorskeena waxaan ka dhigan doonaa marka ugu horeysa mid parameters leh. waxaan leenahay circular array queue. parameterka uu qaadan doono wuxuu noqon doonaa integer. tusaale waxaan u bixinaynaa initial capacity, size-ka qofka uu soo sheegto ayaan u abuuri doonaa. frontiga waxaan kasoo bilaabi doonaa 0, rearkana waxaan kasoo bilaabi doonaa 0, counterkana waxaan kasoo bilaabeynaa 0 maadaama waxba aysan ku jirin, intaas waa empty. array-ganina waxaan ku shubi doonaa object, array of objects ayaan abuuri doonaa. waxaan u dhiibi doonaa initial size. array of objects markaan abuurno generic aan rabnaa inaan ka dhigno type casting aan sameynaynaa ama conversion inaan generic u bedelno. sidoo kale waxaan abuuran doonaa constructor wax parameters aan lahayn. constructor-kan waxaan u wacan doonaa midka naga koreeyo. waxaan u baas gareyn doonaa keliya default capacity. micnaheedu waxay tahay intaan oo dhan wuxuu kasoo bilaabi doonaa 0, kanna wuxuu ka dhigi doonaa default capacity oo 3 god ayuu noo sameyn doonaa. waxaan u imaanaynaa marka operationskeena hadduu ilaahay idmo waxaan isku dayi doonaa marka inaan sameysano inaan wax ku darno. tusaale ahaan in queue waxaan isku dayeynaa inaan sameyno size-ki inaan ogaan karno, inaan sameyn karno expand, capacity-gi inaan ku sameyn karno expand, sidoo kale inaan sameyn karno is empty inaan jeegarayn karno. waxaan kaloo sameysanaynaa inaan fiirin karno maxaa la dhahaa first element ama front elementiga. ugu dambeyn waxaan sameynaynaa deq inaan wax remove garayn karno, sidoo kale inaan soo daabici karno print queue elements. waxaan ka bilaabi doonaa in queue marka aan sameynayno waa inaan iska jeegarayno meesha ma buuxda. waxaan u baahannahay size-ku wuxuu sameyn doonaa keliya wuxuu soo return garayn doonaa size-ku waxa uu soo return garayn doonaa counter-ka wixii ku jiro. number of elements ninkaan noo hayo kuwa fudud aan ka bilaabeynaa. is empty ayadana waxay qabataa haddii uu faaruq yahay counter-ka markasta wuxuu leeyahay 0. waxaa leenahay marka waxaa soo return garaysaa counter-ka hadduu leeg yahay 0. sidoo kale waxaa ku jeegarayn kartaa haddii frontiga iyo rear-kuba ay leeyihiin 0 ayadana waa empty. waxaan ka bilaabeynaa marka in queue maadaama waxba aysan soo return garaynayn waxaan ka dhigi doonaa void. waxaan leeyahay in queue parameter u baahan yahay shayga meesha lagu darayo waa generic. markaan wax ku dareyno waxaan iska fiirinaynaa hadduu buuxo waxaan ku fiirinaynaa haddii size-ka ama number of elements-ka uu la ekaado array-geena godadkiisa uu buuxsamay aan leenahay. waxaan ku qasbanaa marka inaan sameysano expand capacity function lagu magacaabo. expand capacity waan u baahannahay. hadduusan buuxsamin waxaan sameynaynaa inaan wixii ku darno. expand markaan sameynayno waxaan leenahay tusaale aan soo qaado inta noo keen
expand capacity qaabku noqon doono waa kan expand private aan ka dhigto meel kale in laga soo access gareeyo ma rabo waa void waxaan leeyahay expand capacity waxaan abuuran doonaa marka array cusub oo lagu magacaabo larger arraygan waxaan ku shuban doonaa array of objectives sizekiisana waxaa leeyahay kii hore lengthigiisa oo lagu dhuftay 2 tusaale waxaa rabtay ku dhufan kartaa kadib intaan waxaa u bedeli doontaa conversion ayaa sameyn doontaa typecasting generic aan u bedelanaa waxaan sameysan doonaa sidoo kale loopkan waxaan kasoo bilaabi doonaa integer scan 0 ayaan kasoo bilaabi doonaa scan ilaa inta uu ka yar yahay number of elementskeena scan plus ayaan leenahay mar kasta oo gudaha lasoo galo arraygii weynaay oo hadda aan abuurnay temporary-ga godkiisa indexka scan uu sheegayo waxaan ku shubi doonaa arraygeenii hore godkiisa frontiga wixii ku jiro markaan soo koobiyeyno frontiga waa dhaqaajinaynaa waxaan leenahay frontiga waxaad ku dartaa hal mar kasta oo modulus q.length waa raacsiinaynaa haddaa xusutid si aan u ogaano arrayga aan isticmaalayno circular array inuu yahay waa in mar kasta oo aad increment ku sameysid reerka aan frontiga aad dhahdid modulus q.length mar kasta oo aan ku sameyn intaas ama aan soo gedino waxaan leenahay frontiga aan update gareynayna waxa kasoo bilowdaa 0 reerkana wuxuu tilmaami doonaa godka markaas counterka uu marayo q-geenii hore waxaan ku koobiyeynaynaa marka midkaan cusub si size ama length cusub uu qaato intaa waxay qabanaysaa marka in aan sameyno expanding capacity in lagu dhufto 2 hadduu 4 ahaa 8 hadduu 2 ahaa 4 qaab noocaas oo kale aan commentiga ka qaado haddii marka uu buuxsamo waxaan sameynaynaa haddii sidaan dhacdo marka waa full waxaan ku sameynaynaa expand haddii kale waan ka gudbaynaa mar kasta waxaan ku shubaynaa godka oo reerka tilmaamayo elementiga aan wadanay parameterka mar kasta aan reerka wax ku shubno reerkan waxaan leenahay dhaqaaji increment aan ku sameynaynaa mana ka tagayno q.length inaan dhahno modulus q.length oo qaabka circular arrayga u shaqeynayay counterkana mar kasta waxaan leenahay plus intaa waxay qabanay in ay kusoo darto element haddii aan kasoo gudubno aan u imaano qaybta first waxay noo qaban doontaa inaan ogaano front elementiga waxaan leenahay waxaan soo celin doonaa element waxaan u bixinaynaa first hadduu empty yahay wuxuu soo throw gareyn doonaa empty stack exception waxaan leenahay hadduu empty yahay waxay soo throw gareysaa empty stack exception haddii kale waxaa soo return gareysaa godka uu tilmaamayo frontiga waxa ku jiro symbol arraygana frontigiisa waxa ku jiro ayaan loo soo celin doonaa haddaan rabo inaan remove gareeyo marka hore waxaan iska jeegareyn doonaa inuu empty yahay iyo in kale waxaan leenahay marka dq waxaan u baas gareynaynaa intaan waxaan rabnaa marka hadduu empty yahay waxaa lasoo throw gareyn doonaa intaan hadduusan empty ahayn arraygeenii godka uu tilmaamayo frontiga meel ayaan ku keedsan doonaa waxaan ku keedsanaynaa removed element waxaan ku shuban doonaa arraygeena godka uu tilmaamayo frontiga waxaan soo sheegnay mar kasta oo wax la tirtirayo frontiga ayaa laga tirtiri doonaa godkii waxa ku jira markaan meel ku keedsano waxaan ku shubi doonaa si uu empty u noqdo null faaruq ayaan ka dhigaynaa kadib frontiga waxaan u rari doonaa next waxaan leeyahay frontiga update garey oo increment ku sameey modulus q.length haddii godka ugu dambeeya la gaaro oo godka ugu dambeeya la tirtiro frontiga waxaa laga soo bilaabi doonaa 0 mar kasta oo la tirtiro shayga waxaan leenahay counterkiina waxaa ka jirtaa 1 hadhowdina waxaa soo return gareysaa removed elementiga shayga la tirtiray ayaa la soo celin doonaa kana wuxuu qaban doonaa marka inuu shay frontiga ku jiro uu tirtiro hadduusan empty ahayn haddii la tirtiro marka counterkiina halaan ka jari doonaa haddaan rabo inaan soo daabaco waxaan isticmaali doonaa print q sida caadigaa taqaanay waxaa usoo daabici doontaa arraygii oo kale hadduu empty yahay
maadaama waxba lagu darayn waxba laga soo maxaa laga dilad gareynayn waxaa leenahay waxaa noo soo daabacdaa the queue is empty. intaasaa qofka usoo daabici doonaa userka ls haddii kale shaqadan qabo. shaqada la qabana waxay noqon doontaa marka in aan samaysano integer indexka waxaan ku shuban doonaa frontiga meesha ugu horeyso oo laga soo bilaabayo daabicitaanka wuxuu noqon doonaa frontiga. waxaan abuuran doonaa loop waxaan leenahay I waxaan kasoo bilaabi doonaa 0 I ilaa inta ka yartahay counter kadib waxaa leenahay plus plus sababta counter aan u dhahanay oo queue.length u dhiiban waxay tahay queue-ga hadduu yahay 10 god oo 5 god wax ku jiraan waa inaan 5ta kaliya aan soo daabacno haddii kale 10 god soo daabici doonaa oo 5 xaba ay bannaan tahay 5na wax ku jiraan si marka aan waqti u beeqaamino performance-gana u fiicnaado waxaan isticmaalaynaa counter-ka inaan ku jeegarin. waxaa leenahay marka markasta waxaa soo daabacdaa queue-ga godka uu tilmaamayo index godkaas markii lasoo daabaco si next god aan u aadno waxaa leenahay indexkeeni waxaa noogu shubtaa indexkii oo lagu daro xaal kadib waxaa leenahay modulus queue.length queue.length-ga waxaysan u hareynin waa circular area isticmaalaynaa marka haddii godka ugu dambeeya la gaaro horeya haddana laga soo bilaabi doonaa waa qaabka uu isticmaalayo. ugu dambeyn waxaan isku dayaynaa inaan tijaabino in uu shaqeynayo iyo in kale. waxaan abuuran doonaa main method si aan u tijaabino inuu shaqeynayo in kale. waxaan leenahay marka main waxaan object ka abuuran doonaa circular array waxaan u baas gareyn doonaa numbers oo ah integer waxaan leenahay marka numbers new haddii marka size uu qofka sheegto by default initial capacity size-kiisa la qaadanaa haddii kale waxaa la qaadan doonaa default capacity oo ah 3 god. haddaan rabin wax kusoo daro waxaa leeyahay numbers.add in queue waxaan kusoo dareynaa 100 waxaan kusoo dareynaa tusaale 300 waxaan kusoo dareynaa 400. haddaan rabin inaan ogaado size-ka waxaan leeyahay size waxaan soo daabiceynaa numbers.size. haddaan rabin inaan ogaado is empty waxaan leeyahay empty mia oo waxaan ku fiirin doonaa numbers.isEmpty. haddaan rabin inaan ogaado elementiga ugu horeeyo ama front element waxaa leeyahay numbers.first. haddaan rabin inaan wax remove gareeyo waxaan dhihi doonaa remove front element waxaan leenahay markaas dq. haddaan rabin inaan soo daabaco elementiska meesha ku jiro waxaa leeyahay print numbers.print q. hadda haddii aan tijaabino waxaan arki doonaa 3 number kusoo daray hal xabo ka midna waa tirtiray isbedelka imaanayo aan fiirinaynaa size-ka waa 3 oo 3 elements ku jiro false ma empty ma ahan. front elementiga ugu horeeya waa 100 aan tirtirnay markaan kadib soo daabacno waxaan arkaynaa 300 iyo 400 intaas ayaan arki doonaa. haddii aad fiiriso marka koodkii wax dhan waa noo shaqeynaa hadduu ilaahay idmo